Special difficulties waa qeybaha ad adag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Waa qeybaha ad adag. Special difficulties waa qeybaha ad adag. A buga New Concept English Practice and Progress. Further explanation sharaxaad dheeraad ah. Waxaan ku baranaynaa make and do sida loo kala isticmaalo. Dadka inta badan way ku jahwareeraan, inta badan way qaldaan, laakiin weeyada saxda ah ayaan jeclahay inaan idinkaga soo tusaale qaado insha Allah. Here waxa aaday well chosen examples. Well chosen examples ayaa halkaan ahaaday oo ku saabsan make and do. I tried waxaan isku dayay to make conversation inaan la sameeyo wada sheekaysi. When she had made the beds markii ay hagaajisay ama gogoshay sariiraha ama ay samaysay sariiraha, she went waxa ay aaday downstairs, hoos ayay aaday, qaybta hoose ayay aaday downstairs. You mustn't make waa in aydan sameynin so much noise waxan badan ama qaylo badan. I made a promise waxaan ballan ku qaaday never to see him again inaan dib dambe u arki doonin. He is the sort of person isaga waa nooca qofka who always had iyo jeer makes sameeya terrible shido ama dhibaato sameeya. Do you think ma u malaynaysaa it will make inay sameyn doonto any difference wax farqi ah? He is learning wuxuu baranayaa English but laakiin he hasn't made much progress horumar badan ama horukac badan muusan ka sameyn. He made a lot of money lacag badan ayuu ku sameeyey in South Africa. He made wuxuu ka soo saaray ama ka sameeyey a lot of money lacag badan in South Africa Koonfur Africa markuu tegay. I was asked waxaa la weydiiyey to make a speech inaan khudbo sameeyo. I was asked waxaa la weydiiyey to make a speech khudbo ama hadal inaan sameeyo soo jeedintiisii. I will never make marna ma sameyn doono the same mistake again isla qaladka mar kale dib uma sameyn doono. I found it difficult waxaan u arkay inay u adag tahay to make up my mind inaan maskaxdayda go'aan ka qaato. Do ayaan u imaanay. He always had iyo jeer does wuxuu sameeyaa his best wanaagiisa kan ugu fiican ayuu sameeyaa. When did you do goormaad qabatay ama samaysay your homework shaqadaada guri? Do me a favor please fadlan asxaan ii samee. I did a few jobs waxaan qabtay shaqooyin yar about the house ku saabsan. I can't do any more work today ma samayn karo shaqo badan oo dheeraada maanta. I want you waxaan kaa doonayaa to do the exercise inaad samayso layliga 24 on page 16 ee pageka 16. I did a lot of shopping yesterday shalay waxaan qabtay ama sameeyey dukaamaysi badan. That shop dukaankaas does very good business ganacsi fiican aad u fiican ayuu qabtaa. Exercise layli isku day marka adiga. Supply waxaad gelisaa the correct form qaabka saxda ah of make and do in the following kuwa soo socda. He a mistake qalad and I told him waxaan u sheegay to the exercise again. He business in Australia and a lot of money lacag badan ayuu soo saaraa. I know you are you best but laakiin you are not very much progress horukac badan ama horumar badan ma sameynaysid. After I had the bed sariiraha I went out and some shopping ayaan sameeyey xoogaa dukaamaysi ah. Now step up your speaking power. Step up your pronunciation. Step up your pronunciation. Special difficulties. Further explanation. Make and do. The difference between make and do. I tried to make conversation. When she had made the bed, she went downstairs. You mustn't make so much noise. I made a promise never to see him again.
He's the sort of person who always makes trouble. Do you think it will make any difference? Do you think it will make any difference? He's learning English, but he hasn't made much progress. He made a lot of money in South Africa. I was asked to make a speech. I will never make the same mistake again. I found it difficult to make up my mind. Do. He always does his best. When did you do your homework? Do me a favor, please. I did a few jobs about the house. I can't do any more work today. I want you to do the exercise 24 on page 16. I did a lot of shopping yesterday. That shop does very good business. Thanks.